السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa joognaa degmada Shibis wax badan ay Shibis dhahdeen caawa insha Allah muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay Shibis hore aan u socono waaxda hadda aan kali rabno waa waaxda Calasow waaxda aan joogno waa waaxda Calasow waxaa ka sii joognaa degmada Shibis waxaan tageynaa insha Allah masaajidka Yaashay waa masaajid magaciisa laakiin xaafadda dhan magaceeda waxaa la dhahaa Yaashay hore waxaan idinkugu sheegay meel walba oo magaalada Muqdisho ka mid ah xaafadaheeda haddii masaajid caan uu ka noqdo ama farmasho uu caan ka noqdo ama dukaan caan ka noqdo magaca meeshaas magaca dukaanka ama magaca farmashiga loo yaqaan ama masaajidka xaafadda magac u noqonayo waa caado Soomaaliya ka jirto oo caadiya aan isku ceebeyneynin caadina dadka agtooda ka ah masaajidka caan noqdo magaciisa xaafadda dhan magacaas la dhahaa marka aad xaafadan magaceed waxay ku dhahayaan Shibis waa degmadii laakiin waa halkay Yaashay meel la dhahaa waa masaajid magaciisa ma sha Allah degmadan waxa aan horta aan aad ugu jeclaado waxay tahay oo aan degmooyinka kale uga soo sooca xoogaa waa nadaafadda qashimo tiro badan oo jidka yaala malahan qashin jawaano ku jirjiro kuwa bacaah oo meelo tuurtuuran waxaas ma ku dhex arkin inta dhex socday xaafadda jawigeeda nadaafadeed waa normal ma dhaheena 100% waaye sababtoo ay xaafada ka sii nadiifsanay jiraan laakiin waxaa dhaheena xaafadda nadaafadeeda waa macquul ilaa xad waa macquul sidoo kale jidadka xaafadana waa macquul guryaha cabirkooda uu yaryar yahay ma weyna guryaheeda cabirkooda sidoo kale kirada guryaha xaafadda waa qaali waa xaafad magaalada ku dhex taalo qolki $100 oo qiyaasan yahay amaba haddii filo uu yahay guri filo uu noqdo waxa weeyaan waxaa la ijaarayaa hadduu 4 qol iyo wax saas ka kooban yahay 350 ama 400 guriga hadduu dabaq yahay qolalkiisu ay badan yihiin qaar waa 450 laakiin wax ka sii badan oo saa'id ah ma jiraan 450 ilaa 300 u dhaxaysa kirada xaafadda waa xaafadii hore qadiimiga ah magaalada Muqdisho ah haddana magaca ay wadato waa Shibis degma ahaan magaca xaafaddu ay sii wadatana waa Yaashay masjidka la dhaho oo magaca uu ku baxay waan u dhownahay waa masjidkan hadda ag mari doono insha Allah kaamirada waan idinkugu qabanayaa xaafadda cajiib nadaafadeeda ma sha Allah cid walba gurigeeda way iska nadiifisay waa kaas miraha iyo faa'iidada ay leedahay nadaafadda haddii lagu dadaalo mirahana soo baxaya masaajidka waa kan oo dhanka bidix naga hayo maadaama meeshu wadadeeda ciriiri saayida ma aha laakiin ay yar tahay ma ku suurtoobaysa sida aad rabtiin oo aragtid waan soo kala fireynaa wadada kale ta ka baxeena insha Allah masaajidkan waxaa la yiraahdaa masaajidka Yaashay hadda Shibis imaadid atraad masaajidka Yaashay yaa rabaa ma xaafadda Yaashay xaafadda xitaa magac Yaashay loo bixiyay على طول لجو كينا على طول أو معناه المهم نظافته وإيمانك بركيس وحقيقة وحكلته حقيقة نظافته إنها أي أورونتها إيمان بهديلي إيمانك بركي ومعناها ماشى للساري سيد أي أسرة درجة للساري ودريم كرتان أيضا درجة أي هيسته ما أنت حافظ أنا رحمرينه waa maalintii igu horeysay oo aan imaado haddana wallahi aad baan ugu riyaaqay ma sha Allah tabarakallah guri kasta hortiisa waa nadiif jidka waa arki kartaan wasaqdii iyo qashimadii xaafadaha qaar ay leeyihiin xaafadan ma lahan ceebka saliin waa reer Shibis waa idin qare sidoo kale waxaad arkaysaan xarkaha kale dharka in banaanka lagu wada warto waxaa keenaya ciriiriga guryaha xoogaa iska yara ciriiri ah
waxaa laga yaabaa hal boos oo kaleeto in la kala baro oo nus iyo nus loo kala dhiso nafis dadka ma helayaan ay dharkii ku kala wartaan oo ugu qalalo waxay ku qasbanaanayaan inay wax macbila banaanka ka samaystaan kadibna xarkaa banaanka la iskaga warto laakiin nadaafadda haddii lagu dadaalo maryo qof guri iridiisa ku waran wax mushkilada ma lahan aniga waxaa ka dhinta nadaafadda waa nadaafadda degmooyinka in la ilaaliyo xaafadaha la ilaaliyo xaafadan meelaha qaar hadda meeshaan xaafad jidkan aan marayna xitaa xoogaa nadaafadiisu ash ma aha anigu waxba ma qarinayo wixii indhahayga qabtaan waan idiin sheegayaa idinkuna indhihiina way arki karaan hadda jidkan aan soo marnay nadaafadiisu okay ma ahan ama wadooyinka hore ama kuwa naga dambeeyo waa maasha allah tabaarakallah jidkan nadaafadiisu maxay okay u noqowaysay inta hore aan soo dhaafnay waxa waaye guryihiiya ka sii jeedo irdaha guryaha jidka maba kusoo jeedaanba way sii jeedjeedaan saa darteed daaqadda ka tuur sheeko ahay soomaaliya taqaanaa qashinka daaqadaa laga tuuraabo war daaqadan qof ma degano mideeda kaleeto cid meel la maraayo sooma noqon karto jid ah see wax uga tuure wixii aa gurigaaga ku tuuri weysay sidee daaqadda uga tuuree waa qalad meeshiisa yaalo xaafadda yaashay ama masaajidka yaashay xaafadaha u dhow ee degmada shibis waa naga haysaan muuqaalkeeda xaafadda sidoo kaleeto waxaa aada u soo saaraya waxaa u badan ama ku yaala intooda badan dabaqyo badanaa ku yaalo kuwa dhismaa ka socota almuhim xaafaddu way shidanta maasha allah waxaa kaloo indhihiina ay qabanayaan guryihii qadiimiga ahaa ee hore adiga laga yaabo inay xitaa 50 sano 80 sano ay dhisan yihiin ee weli sidoodii ah waxaa laga yaabaa dadkii lahaa inay maqan yihiin oo sidaas ay meesha ugu yaalaan oo aan weli dib u habeen loo samaynin guryihii hore waxay caan ku ahaayeen gaagaaban ma garanayo dhulka ma gadaal ka buurtay oo hadda markaad bakaaraha dhex maraysa xaafadaha qaar lugahaaga meesha ay marayaan ee dhulka ah ee wadada ah baa daaqadaha cidaha ay ku yaalaan waa daaqada hadda kor ahya oo kor loogu talagalay in hawada laga qaato lugahaaga hoostooda ku yaalaan marka waa ag mareebo daaqada hoosteeda maray cagaagi baa maray taana ma garanayo guryihii hore miyaa saas naqshadii hore quruxsaneed ma saas ahayd mise dhulkii isbedelay oo wadooyinkii waxay noqdeen buur oo korkor u baxay ma fahmi karin muhiimaddu waxay tahay muuqaalkan maanta inaan micnaha ku aragnay xaafadan yaashay ama masaajidka yaashay xaafadaha u dhow ee degmada shibis wax badan ay weydiiseen degmada shibis muuqaalkan waaxda calasow nadaafaddu waa iimaanka barkii intaan hadda aa arki kartaan nadaafadda waa u jeedaan cidahan hadda intaan iska soo horjeejeedo ilaa horteenna sida ay nadiif u tahay xaafad kasta saan maxaa u diiday xaafad kasta haddii saan laga sameeyo oo qof walba hortiisa uu nadiifiyo bal ilaah baan idinku dhaariyay nadaafadda sidaanay waddanka u qurxinaysaa muhiim ma ahan jiinkad maa deganahay sar maa deganahay waxaas muhiim ma ahan laakiin horteyda maxaa yaalaa muhiim ah cid walba horteeda hadday nadiifiso oo nadaafadda guryaha hortooda lagu dadaalo mirahaana dhalanaya nadaafadaana la arkaa kuushaana la gaaraa laakiin careless haddii laga noqdo oo qof walba qashinka uu jidka kusoo tuuro wax soo kordhaayo oo aan waddanka foolxumadiisa ahayn ma jirto foolxumo uunbaa soo kordhaysa foolxumane ehel uma nihin waxaana dad muslimiin ah sidoo kale waxaana dad soomaaliyeed waxaan nahay dad iswada yaqaano wax maqla tilmaam ahaan wanaagsan tilmaamteena wanaagsan aan ku soconno ha laga wacyigeliyo nadaafad darrada dadka samaynayo xaafadaha laga baraarujiyo ifan haddii codkayga uu soo gaaro qof uun awood u leh ama baawar u leh inuu dhaqankan bedelo ha la sameeyo dadka ha laga wacyigeliyo oo ha la ganaaxo cidda qashin horteeda lagu arko qof walboo qashin hortiisa lagu arka ganaax $20 laga rabaa haddii la dhaho wallaahi hal baco wadada maraysa oo bideys ma la arki lahayn dhulkoo dhan wuxuu noqon lahaa dhul gabal-aan la socon karo laakiin aawahe intaasaa naga dhiman maanta dadkan soomaalidan wax kale wax war kuma yeelayaan soomaali awood leh u adeegso baawar inaa ula timaadid ma ahan wax makaa maqlaayaan adi
marka haddii la dhaho lacagaa laydinka qaadaa ganaax wallahi nadaafadda way imaanay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaah